meeshan oo baraha bulshadu ma wuxuu noqday meeshii maxkamadii lagu kala baxayay miyuu noqday miyaadna soo dacweynaysay calaashaan maxkamadda ayaad naga dacweynaysay miya saas maan u fahmaa sheekadaada walaal laki xaajo caysay kaamaan filayn waxaad samaysay walaal waad igu khaldantay inaad magacayga iska soo qaadato. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي وسلامتين ميل والبو دوني الدافية ذاك جوكتان ومركلي ولكن حنف حاج محمود وإذن كلا هذا دنانا ميديا فضلا هدي أكو عصبتها channel كي سبسكرايب كركوسي وشير كلا دافين لينكنا دعكوسي دنبالك مديقال كخرال كسيدا وصودا دعو هدي شلي نداون جرتي سبسكرايب لان فضلا ما انتي نوصر هديك وما حسن قنبل الكنفرو سي اي كسو غيران موخال والبان سو قلنو isku soo noqoto aan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub intaanan muuqaalkeena u guda galin waxaan rabnaa haduu ilaahay karaan inaan share out u sameeyo walaalkayga qaaliga ah alfanaan Ahmed Weyne ayaan share out u sameynaynaa channelkiisa halkaan ayaan soo saari doonaa linkiskana oo soo qaban doonaa haduu ilaahay karaan noqdo marka hanu ku ceebeynayna meesha ninka subscribe ka loo saaro share comment dhamaan waa dhankiina waa nin lajana waa nin fanaana waa nin leh diskuuroon yahay talent leh marka Ahmed Weyne official subscribe ka loo saaro insha Allah taala adunka walaalu yahay aakhir nin wax isku ahan jirinbo halagu yaa channelkiisa Ahmed Weyne official waxaynu haaya marka video ilhaan xarago oo ka kulaatay ama ka xanaaqday muuqaalkii ay soo duubtay shalay laki xajo waas ayadoo jawaabaysa marka hore videoga aan daawano kadibna aan falanqeeno haye let's go maanta waxaan inagu soo galay walaalahayga Soomaaliyeedow waxa weeyaan laba qof oo islaayay markaad heshiisiinayso sidan anigu aaminsanahay labada qof xaal mastuur baa lagu dhameeyaa Farid xaal mastuurkuna wuxuu yahay in aniga labada qof oo islaamid ba mar wacdid xaalad wanaagsan keentid heshiisiisid inta doonta kugu qaadato ama ha kugu qaadato wax badan ama ha kugu qaadato wax sidan aniga ba videogan ku horeey aan ku soo sheegay hadii aad rabtid laba qof in aad dhaxdhaxaadisid oo wanaag dhaxdooda ka sameeyso xal mastuur ayaa loo baahan yahay taasoo labadaba marba qof ina wacdo la hadasho hadan qofka kala wacdo la hadasho hadana dadkii ay isku keento saasay ku fiicantay ilhaan sidaas ay leedahay ama dhiba camera ama you kamarin kiyo wayna try garayso sida aad ma garanaysaa labada qof oo walaalaha aad u dhax gasho oo aad u heshiisiiso Farid taasan anigu waqaana wanaag iyo sharaf marka wixii ka dambeeya ama has baraha bulshada ama maxaa dhacay Farid iyagoo saddexdiina wada socdo ama haddaan doonto ka soo hadal ama haddaan doonto waxa doontid samee markaas يعني سيدان أفهمي مركي على بعض قف إسهيستو على سوا هذا شو حل وسطنا أسوق جرتو مركز إذنكو وذا الجرا سوشيال ميديا إنا كنت توحدي بأمارك إلى ذا لكن بل ولا لها سوماليا ذو سيدي إن لا تهي قف نمو البحقوق دي سوية قال فريد أنيقو هاتا الرنتي أنيقو إلهان أهان إلا ما وناكسنا قف بلا آذنا أو أنا لهلين أو نول أو تلفكيسا أنقرانا أو أنقرانا ينولشيسا أو أنقرانا يمشو دقيني هاي أو أني ميرد سقطة بحي تاوعي كارو إنا نقو أنك قرار سيداي كخروح بدنيت واي إن تليفون لغو سو ديرو دانك كلانا تليفون لو ديرو قو أن خلط وليبا وخلط وين حنتاي marka uma wadid asxaan iyo heshiisiin iyo nabadoon kama tihid arintaas Farid talabaad qof bulshada Soomaaliyeed maanta khaladka uu galo qof kale anigu raaligelintiisa ma lihi raaligelinta waxa ka fiican saxwe wala taziru wazratun wizra ukhra quraanka meeno qof dambi uu galay qof kale loo masaarin karo معناه الجدة لبضان خفيس هايستان أفلاقات فربضان أيها كدعدي إن dadka soo heshiisiyo marka hore aan raaho bulshada dadka Soomaaliyeed oo baraha bulshada ku jira oo aad
dhagahooda wasakhayseen raalli geliya qumaya ina ruugtaya inaan dhahdo ila fiican aniga anagoo meel wada yacni intaadan soo gelin youtube-ka baraha bulshada aadan ka hadlin dhibaatada dhexdeena taalo marka hore in aad soo xaliso kadibna aad baraha bulshada la timaado ayaa noo rooneed ay leedahay macnaha dadkii aad dhegahooda wasaqayseenna raaligeliye na dhaha markaas annagaa diyaar u ah yacni dadkan dhexdooda in la galo la heshiisiiyo la kala qabto dad diidan ma aha macnaha wax dhexdooda galay la yihiin macnaha ma fahanteen joogna laakiin adoon qofna wicin qofna la hadlin qofna su'aal weydiinin wax badanna aad og tahay inaad taw tiraado oo aad gashaban ku yiri YouTube ama whatever wuxuu soo gasho Facebook ba ha noqotee aad tiraado dhagii baa laynaga wasakheeyay ka raalli ahaada walaalahayga Soomaaliyeedo aad baan uga xumahay waan u damqanaya haddaan noo damqanaysid maana soo wacdid haddaan noo damqanaysid maana la hadashid horta xaqiiqada jirta waaye koleetab waxaa dareemay videogan markaa fiirsato in ilhaan xarago oo ay ka xanaaqday ama ay ka xumaatay hadaladii ay lakii ku hadlaysay laakiin waxay ula jeeday sidaan horeba idinkugu soo sheegay iyadoo kalsooni ku qabta wanaag leh ula jeeday macnaha laakiin marmarka qaar ba adigoo saxsan maslaxa doon ah in aad dadka kala maslaxaysa rabtid haddana eed lagu soo jeedinaa weliba lagu xanaaqa xumaan lagu tiirinaa haddaan noo damqanaysid maana kala celisid oo tiraahidna ayaadahayn akhlaaq ma lihidine aamusa فريد talabaad wax kasta oo dacwad og tahay runta waxay yihiin saa anigii waxaa simaysaa gabadhaan is qabsanay aa leedahay aabbaa laga hadlay hooyaa laga hadlay adeer baa laga hadlay ilmaa laga hadlay kaas horta ilmahaaga maaha ismayd ciyaal ha ka hadla labadeena ayadna simaysaa labadooda farqigu dhexeeya maxay tahay waxaan u malaynaa ilhaan aniga ma caytamay ka wadaa waa leecaaya oo kaliya sidaan warku u fahmay macnaha shaadeerto waxay rabtaan ha dhahdo xoray tahay nacdal bay naga tahay dib u dabaysiin aan ugu soo jawaabaynin iyada iyo qayrkeed toona lagama yaabo inaan u soo jawaabo waxay doonta ha dhahdo waa free laakiin adiga maxaa samaysa ii sheeg meeshan oo inta way su-aasha marka adiga maxaa samaysay ii sheeg iyada way isu aflagaadeysi aniga waa aflagaadey yacni waa is aflagaadeen waxa isu reebana malaha adiga maxaa samaysay su-aasha intay ka taagan tahay marka oo baraha bulshadu ma wuxuu noqday meeshii maxkamaddii lagu kala baxayay miyuu noqday miyaadna soo dacweynaysay calaashaan maxkamadda ayaad naga dacweynaysay miya saas maan u fahmaa sheekadaada walaal laki xaajo caysay kaamaan filayn waxaad samaysay walaal waad igu khaldantay inaad magacayga iska soo qaadato laki xaajo caysay kaamaan filayn waxaad samaysay xumaanta aan sheegaya waa jaawa laga xumaaday mujeedin waa laga xumaaday marka waxyaabaha qaarkooda haddii aadan ka fiirsanin aadan u gurgelin waxyaabaha qaarkooda haddaadan ka fiirsanin oo shab aa iska soo tirahdid wax badanaa kala kulmaysaa adigoon aniga yaqaana qod iyo laan ii yaqaana oo telefoonkayga ii garanaya oo gurigayga garanaya oo haddaan imika kaa qaban hadhow igu soo celin kartid inaad waxaa doontay isaga hadasho intaad gasho facebooka taas ma adaa isku dhisaayey mise maslaxad bay kaa ahayd waa su-aal ugu dambeyn hadalkii ilhaan xaraga waa maqasheen hadaladii laki xaajo caysna waa soo maqasheen waxaan aniga ka eray videogii hore inta fiirsatay waa soo aragtay oo waa soo dhageysatay marka waxaan raacinayaa marka hadda ka hor waxaa jiray nin laashin ah oo gabyaa ah
sidaa ogtiin laashimiinta ama gabyada baadiyaha waa laysku guubaabiyaa khaladadaha ka jiraa laysku saxaa waxbaa layskugu sheegaa sanadkii markii la gaaro waxaa dhacday marka nin laashin dadku waa karbaashi jira dhab wixii dhaco wax asqari jiri ma jirto maalin ka mid laashinkii waa safri magaalo kale uu aaday muddo maqnaa gabadhiis asaga oo dhalay ayaa xaamilo noqotay xaamilo markay noqotay xaamilo oo wiilaba bilaa oday ah macnaa ninka uureyna ma la ogo tuuladiina waa yartahay warkana waa isgaargaaray waxaa bilaabatay xanti marka yaa wadaa saawa inta bax warka markuu batay waxaa la yiri hala sugo ilowki imaahay adoogeed usilaashan meeno meel walba makrabaashi jirnoha usa sugeena arrinkan wax iska dhahay micnaha waxaa la waayay qof inta soo baxo dhaho waryaada waa khaldantiin gabadhan waxaan Allah ku qaaday dambigaana waa gashay warkaan inta lagu damiyo waxaa la sugay odagiina maslaxo wiligiis ka talin jiri waxyaabaha khalad kala dhaco ayuu sixi jiri ma islaheen waxaan adeeg kugu soo noqon doonaan markuu yimaaday oo tuuladii soo galayba waa laga horgeeyay marka heblo aliyiri haya aliyiri igaarkan gabartiisoo cunuga sinku wado sinta u saaran cunugii ayaa ka hor imaaday haya aliyiri arrinkan wax ka dheh adiga khalad diida ahayd runtaa dad u sheegi jirtay arrinkan hadda maanta bal wax ka dheh ayaa aliyiri waa fiiri oday waay gabadhiis u saa dhalay wiilka sinta lagu wadane awoowas u yahay khalad baa ku ibaadee markaas wuxuu yiri intuu fiiriyay dadkii uu fiiriyay gabadhiisa uu fiiriyay markaas uu yiri baariye asiri berdarankan asiri beledka waa ka buuxa asiri iska boobootiisa biiba ku arooreen videogan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan asxaabta waa mahadsantiin meel walba dunida daafeeda ay ka joogteen waxaan idin leeyahay nabadgelyo.